sidee haasaabo ula bilaabi kartaa gabadh qurux badan? Haasaawaha ama shukaansigu waa waxaynu tan iyo abuurkeennii soo kala dhexlaynay. Damacuna waa waxaynagu dhiirigeliyay inaynu gabadh aynaan aqoon u lahayn afaaraheeda galno. Haddaba fiidiyogan waxaan idinku soo gudbinayaa 5 hab oo haddii aad u shukaansato gabadh kastoo qurux badan aad ku guulaysan doonto soo xerogelinteeda. inta aad u jirsanayso, rag badan ayaa caadaystay mar kastoo ay gabadh qurux badan arkaan inay u dhawaaqaan iyagoo aad uga fog goobta ay gabadhu ku sugan tahay. Haddaba haddii aad doonayso inaad shukaansigaaga ku guulaysato, u dhawow ilaa aad 2 tallaabo uga jirsanayso. Gacantaaduna yay taaban haba yaraatee meel jidhkeeda ka mid ah. Hana isku dayin inaad la hadasho ama u dhawaato gabadh nin la socdo. Haddii kale qaabka aad isu taagayso si fudud ayaa lagu ogaadaa ninka ragga ah inuu la taagan yahay gabadh aan muxramkiisa ahayn, sababtoo ah waxaad ka garanaysaa sida uu ahmiyadda u siinayo hadalkeeda iyo dhaqdhaqaaqa jidhkeeda. Ragga qaar ayaa gacmaha madaxa ku xoqda, qaar baa jeebka gacanta geliya, qaarna cidiyahooda ayayba ku mashquulaan. balse intaasi waa wax carqaladayn kara shukaansigaaga. Waxa habboon in aanad foorarsan sidii qof xishoonaya ee aad indhaha u saarto, hareerahana fiirfiiri sidii qof faqaya ee aad isu taagto si kalsooni ku jirto. Ereyadaada ugu horeeya. 2-3 erey ugu horeeya ee aad rabto inaad gabadha uga bilowdo hadalka waa inay maskaxdaada kugu sii jiraan intaanad odhan. Dhowrka erey hore wixii ka dambeeya iyaga isu furi doona oo sida roobka iska soo daba dhici doona. Haddii kale markay gabadhu ku soo eegto ayaad shigshigi oo hadalku ka soo bixi waayay sidii qof haghaga leh. Dabadeedna cidii ka agdhowi kugu qosli, umaamaduna meesha kaaga dhici. Muuqaalka wajigaaga. Wajigu waa meesha aad qofka ka qiimeyso marka ugu horeysa ee aad la kulanto. Haddii aad quruxley hadal la wadaagaysana waxaa qasab ah inaad waji furfuran oo farxadi ka muuqato ku qaabisho si ay ugu qanacdo kulankaaga, xiise gaarana uu u yeesho hasaawihiinu. haddii aad waji cambusan la hortagto sidii qof tacsi ka wareysanaya, wixii dhaca adaa eedeeda leh anigu shaqo kuma lihi. Ha isdhiibin. haddii bilaaba ay dhacdo inay gabadhu ku fahmi weydo, ereyo xunna kuugu jawaabto kaana dhaqaaqdo, ha isdhiibin, hana xanaaqinee yara dhoolla caddee oo cod dheer ku dheh waa inoo mar kale qaali. waayo maad guuldarraysan markan ee iyada ayaan shukaansiga waxba ka aqoon. kalsoonida aad muujisaana waxay sababaysaa inay dadka ku eegaya idin maleeyaan inuu xidhiidh hore idinka dhexeeyey, halkii ay sodhan lahaayeen miskiinka dhulka lala jaray. ugu dambayn, haddii wax kasta ay ku hagaageen gabadhiina aad isfahanteen, fadlan like, comment, share and subscribe.